Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asxaabta ku xiran janaalka Hagardiid Tube, soo dhawaada maanta iyo cashir cusub iyo cashir xiiso leh. Balse intaan cashirka u guda gelin, waxaan ku xasuusinayaa inaad janaalka subscribe inoo saarto, sidoo kale aad share gareyso si ay uga faa'iidaystaan asxaabta. Sidoo kale maanta waxaan idin wadaa oraah aad u qiimo badan ama xigmadii aad iga barateen. Haatan waxaan guda gelaynaa cashirkeena. Cashirka maanta waa su'aalo laga yaabay maalin in lagu weydiiyo ama adi inaad qof weydiiso aad u baahato. Cashirku wuxuu ku bilaabanaa sida tan: Are you worker? Shaqaale miyaad tahay? Yes, I am worker. Waxaan ahay shaqaale. Where do you work? Halkeed ka shaqeysaa? I work in the airport. Waxaan ka shaqeeyaa eelaboorka. What do you do in the airport? Maxaad ka qabataa ama maxaad ka sameysaa eelaboorka? I am translator. Waxaan ahay turjumaa. What do you translate? Maxaad turjuntaa? I translate English language into Somali. Waxaan turjumaa luqadda Ingiriiska waxaana ku turjumaa Soomaali. Do you take enough salary? Ma qaadataa mishaar kugu filan? Yes, I take enough salary. Waan qaataa mishaar igu filan. Beedka labada ugu duwanaa marka. Qaybta labaad ee cashirkana waxay leedahay sida tan: Is your father rich or poor? Aabahaaga faqiir miyaa mise waa taajir? Is your father rich or poor? Aabaha qani miyaa mise waa sabool? My father is a rich man. Aabahayga waa nin taajir ah. Has your father? Aabahaaga ma haystaa cars gawaari, stores bakhaaro, ships maraakiib, and airplanes iyo diyaarado? No, maya. My father aabahayga has no ma haysto all of what you have counted. Waxa aad tirinaysid dhammaan ma haysto aabahayga. But laakiin he has wuxuu leeyahay ama wuxuu haystaa a beautiful house guri qurux badan, and beautiful farm beer qurux badan. What is your father's job? Maxay tahay ama waa maxay aabaha shaqadiisa? My father's job aabahayga shaqadiisa is waa a driver darawal, because maxaa yeelay he drives wuxuu darawal ka yahay a car gaariga for ambassador ee safiirka of Egyptian embassy in Mogadishu. Safaaradda Egypt ee Muqdisho ku taalo safiirkeeda ayuu gaarigiisa darawal ka yahay aabahayga. Thank you bro. Waa mahadsan tahay walaalkayga. You deserve my bro. Adigaa mudan walaalkayga. Halkan ayuu ka egyahay maanta cashirkeena, balse waxaa qaadanaynaa hal oraah ama hal xigmad oo aad u qiimo badan. Sidaa hore idinkuugu sheegaba, cashir walba markaan qaadano waxaan ku xijinaynaa ama aan ugu dabamarsiinaynaa hal oraah oo aad u qiimo badan. Sidoo kale waxaa idin xasuusinayaa mar labaad inaad janaalka subscribe inoo saartaan, aadna noo share gareysaan si ay asxaabta uga faa'iidaystaan. Sidoo kale qaybta hoose ee commentigana fikradihiina iyo ra'yigiina inoogu reeba. Sidoo kale erey haddaa meeshaan ka faa'iidinay jumlad soo geli ee comment ahaan noogu soo qoro. Waa mahadsan tahay. Waxaan guda gelaynaa oraahdeena ila soco. Xigmadda waxayna leedahay: Mirror is my best friend,
because when I cry it never laughs. Mirror mayaaraddu ama mayaaradda is my best friend waa saaxiibkayga wanaagsan ama saaxiibkayga fiican. Because maxaa yeelay when I cry markii aan oynayo it never laughs. Markii aan oynayo iguma qoslayso. Ereyga laugh waa qoslid ama qosol. Mirror is my best friend. Mayaaraddu waa saaxiibkayga fiican. Because maxaa yeelay when I cry markii aan oynayo it never laughs. Markii aan oynayo iguma qoslayso. Laga yaabay qof bini'aadan ah markuu uu kula joogo ama saaxiibkaaga markuu kula joogo adina xaalad nooc kale ku jirtid ama murugo dareemaysid isagana inuusan dareeminba oo markaasayto iska qosla ama uu kula kaftamo. Laakiin mayaaraddu sidaa ma ahan, waa saaxiibkaaga wanaagsan. Because when you are happy it never cry. Markii aad faraxsantaana kuguma oynayso way kula farxaysaa. And when you are crying markii aad oynaysana it never laugh waa kuguma qoslayso. So mar walbo xaaladda aad ku jirto ayay kula matalaysaa. Cashirkeenii maantana halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Tani iyo cashirka xiga sidaa iyo nabadgelyo.